بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ugu horeyn waxaynu isu dardaarmaynaa cabsida alle subxaanahu wa tacaala. wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allahi uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabad wahum laa yudlamuun. alla wuxuu ina leeyahay waxaad ka baqdaan aayaddaasoo loo yidhaahdo mufasiriintu ay yidhaahdaan waa aayadihii ugu dambeeyey oo kitaabka munasalka ah oo qur-aankaa soo dega. aayadahaas ugu dambeeyey alla wuxuu inoo ku sheegayaa oo ina kula dardaarmayaa inaynu isaga ka cabsano. maalin alla ka baquu leeyahay subxaanahu wa tacaala, layna naqi doono, laynina celin doono alle xaggiisa. maalintaas wixii aada shaqaysateen baa layni siinayaa oo laydinku abaalmarinayaa. maalintaas wax dulmiho ma jiraan, wahum laa yudlamuun. maalintaas waxa weeye dulmi ma jiro. inaynu marka ilaah ka cabsanno, inaynu isu dardaarno maarmaan weeye. sidoo kale alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala innagoo isxasuusinayna cabsida alle: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat liqadin wattaquu llah ina allaha khabiirun bima tacmaluun. war dadka iimaanka laga helo, iimaanka loo alle iyo qiyaamo iyo rasuul iyo alla la rumeeyado ilaaha ka cabsada subxaanahu wa tacaala. naftuna ha fiiriso waxa ay biri hormarsatay, ma wax xun baa mise waa wax wanaag ah. maxaa yeelay alle waa khabiir, wax walbaba waa gun ogyo oguntooda hoose ayuu ogyahay. waxaa layna ka rabaa marka inaynu ilaahay ka cabsanno subxaanahu wa tacaala. cabsidaas waa inay mar walbaba sahay inoo tahay. watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwa. sahay qaato, aakharo u sahay qaata, adduunka ka sahay qaata. maxaa yeelay wax sahay laga dhigto oo xagga aakhara lala aado waxa ugu khayr badan ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed waxaa mar walbaba isu dardaarmaynaa, maadaama aynu nahay iimaan ilaah subxaanahu wa tacaala aynu rumaynay, waxaa mar walbaba layna ka rabaa inaynu isaga keliya ka cabsanno, inaan cid kale ka cabsan. inaynu alle subxaanahu wa tacaala cabsidiisa aynagoo alle ka cabsanayna aanu la kulanna layna ka rabaa. waayo waxaa hadafkeennu yahay oo qaayaheennu yahay oo aynu muxaadaraadka iyo jalsaadka khayriga ah aynu u jeedinaynaa, waa inaynu janno ku helnaa. jannaduna taqwada allay ku jirtaa. tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiya. taasi waa jannadayada baa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala aada u jeedaan. waana dhaxal, waxaana dhexlahayaa addoommadayada kuwa alle ka cabsada subxaanahu wa tacaala. waxaad ogaatay marka cabsida alle mar walbaba inay lagama maarmaan tahay. mowduuceennu maanta bilikhtisaar innagoo soo gaabin doonaa haddii alla idmo wuxuu noqon doonaa alistiqaama, toosnaanta la toosnaado oo lagu toosnaado diinta alle iyo daacada alle iyo daacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ilaa mataa, ilaa goorma? ilaa qiyaamu saaca. oo qiyaamaha saacaddaadu waa goorma? waa markaad dhimatidoo naftu kaa baxdo yaa qiyaamahaagii dhacaya ogow. ilaa markaasaa waxaa weeye waxaa la rabaa inaynu toosnaanno, istiqaamo la nimaanno. istiqaamada dhowr arrimood baynu u qaybin doonaa. iyadu maxay tahay oo istiqaamo maxaa la yidhaahdaa? alla iyo rasuulkiisuse maxay ka yidhaahdeen? darajaadka istiqaamadu leedahay qodobka labaad baan ka dhigi doonnaa.
qodobka saddexaad waxaynu ka dhigi doonaa insha allahu tacaala waxyaalaha wasaa'isha taxqiiqul istiqaama istiqaamada waxyaalaha ay ku dhabowdo oo ku xaqiiqowdo toosnaantu. qodobka afraad waxaynu ka dhigi doonaa asbaabul muciinatu calayhi inaad istiqaamo la timaadid oo toosnaatid waxyaalaha kuu kaalmaynaya ayaynu ka dhigi doonaa qodobka kale oo afraad. qodobka shanaad waxaynu ka dhigi doonaa haddii alla idmo min thamaraati alistiqaama faa'iidada ka dhalanaysa istiqaamada maxay tahay oo aynu ka helaynaa iyo midhaha aan ka helayno. qodobka lixaad oo u dambeeya waxaynu ka dhigi doonaa maxaan ka toosaynaa maxaanse ku toosaynaa. haddaynu qodobka hore gallo fa ina alistiqaamata hiya luzuumu taacati illah istiqaamadu waxa weeye in la laasimo la joogteeyo ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala iyo wa taacati rasuul calayhi salaatu wassalaam iyo rasuulka calayhi salaatu wassalaam in la adeeco in la joogteeyaa istiqaamo la yidhaahdaa. wa hiya min jawaamici alkalaami rasuul calayhi salaatu wassalaam hadalka murtida badan oo aada murtidu ugu dhahan tahay oo nebiga la siiyo oo la gaabshay oo gaabanna waa istiqaama la yidhaahdaa. nebiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisiibaa u daliila saxaabiga uu ku yidhi sufyaan bin cabdullaahi radia allaahu canhu xiina sa'alahu qaa'ilan markuu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow qul lii fi lislaami qowlan laa as'alu canhu axadan qayra. islaamnimada iyo waxa ay tahay ii dardaaran hadal ii dardaaran ah hadalkaasoo axad adiga kaa dambeeya aanan weydiin. kelima nebigu calayhi salaatu wasalaam gaaban buu ugu jawaabay oo aada mufiid u ah. wuxuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qul aamantu billaahi uma istaqim. waxaad tiraahdaa haddaad dardaaran tiri qowl ii dheh fi lislaam horta marka u horraysa allihii ku abuurtay rumeeyo qul aamantu billaahi ee rabbi baan rumeeyey allaan rumeeyey markaad tiraadidna rumayntaa alla ad rumaysay uma istaqim ku toosnow ay istaqim bacda aliimaani billaah wa huwa luzuumu taacati illaah. markaad tiraahdid allaan rumeeyey waxaad samaysaa arrintaa rumayntaay oo iimaanka ah oo ad la timid tasaxsuxiyay kugu dhicin meelle ha u warwareegin yamiinan wa shimaalan ha dhugan ee arrintaa iyadaa oo iimaanka alla ad rumaysaya sidaa ku toosnow baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo saxaabigu kula dardaarmay. waa hadal gaaban laakiin aada murti ugu dheehan tahay. waa hadal gaaban laakiin mufiid ah. waa hadal gaabanoo aan waxba lagaga tegin. sidaa awgeed waxaa laga rabaa qof kasta oo muslima inuu mar walbaba alla rumeeyo rumayntaa uu rumeeyey allana uusan lif iyo dooraan kale la imaanay oo ku toosnooda sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nebiga saxaabiga jaliilka ugu dardaarmay ayaa inoo wada taal weeye. sidoo kale alla subxaanahu wa tacaala nebigiisa maxamed calayhi salaatu wasalaam wa atbaacahu min almu'miniina wuxuu amray biistiqaamati cala addiin in ay diinta ku toosnaadaan ayuu amray alla subxaanahu wa tacaala sida allaba u leeyahay fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadqow inahu bimaa tacmaluuna basiir. nebi allow toosnow adiga iyo cidda mu'miniinta u ku raacday toosnaadoo xaqa ku toosnaadoo ilaahay daacadiis ku toosnaadoo mutaabacatu rasuul iyo daacada rasuulka ku toosnaada adiga iyo cidda la jirankaaga ah oo ku raacday.
ولا تطغوا هنا حد بننا ألا ليه سبحانه وتعالى محايا لي ألا وحوجي ذا يوغيا يو بصير وياي وحل وحا أقسمين إنسان الكامر كوحد كقرني إن لا ينكر إنه أمر ألا كسي النبي عيسى يا أمتي سلف كايد ورسولك عليه الصلاة والسلام هم يسوون كل رئيسي يا إنك ما إن الاستقامة الله نبض نوتوس نانو أيا الله سبحانه وتعالى رسولك سأمر يا إنك نصدق الأمر وين هيستوي علينا كرب أمرك إن نوتوس نان الله نبض وحد جبنا أين الله إيمان بالينا كربا ساس أفرح يا الله سبحانه وتعالى نبي سئي مؤمنين تيبا سيدو كلا عاقبة أهل الاستقامة الله مركو كهلي سبحانه وتعالى عربتو الضمبه ذاتك الاستقامة اللي ماذا الله مركو كهلي هي فوائد هي وحي لك الميان الله وحليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله وحليه سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله دول كيريه أنك ربك يوى الله سبحانه وتعالى مثل أنه عابدنه وأنه كعب سنينه وأن أطيعنا والله سبحانه وتعالى مركا كبعدنا ثم استقاموا أرنتاس هذا الكاكتوسنا ذي فوائد إليهم تتنزل عليهم الملائكة ملائكة أياك سودقيس وسودب مريسا قائلين أيقول ملائكتي ألا تخافوا ولا تحزنوا هبغيننا وحين كوري كبغيننا يا عذابي يا عريري يا قبري آدي وعري يلتانا كبغيننا ولا تحزنوا همرقوننا وحي أتكسوا كعدين يا ذرية ديني يا أولاد ديني وحي أتكسوا كعدين كمرقوننا سيدا سال قرنا يا وين مركاسا الله وحليه سبحانه وتعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى وأب الشارين يا وكواس وحليه وأبشروا بالشاريستا بالجنة جنكم بالشاريستا جنته لإني وهي هذا قهر كب بالشاريستا على ليه سبحانه وتعالى جنة كب بالشاريستا أي الله كب بالشارين يا ذاتكاس وحاس كهلا فوائده وعاقبته أي سدا يعرف دمبات كذو النقطة وحوي استقامة اللي من نادي توسنانتي مركز الله رميين كبعد أي كتوسنادين قول كودي داعي الله اللي ما دين ومرة أي سنكل حني داعي رسولك عليه الصلاة والسلام أي سدا كهلين سدا كلا الله وحليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون دول كيري قالوا ربنا الله كو يري قالوا ربنا الله كو قول كود النقضي الله وربك يوا الله ثم استقاموا مركي يرادين كبعدنا هذا كنتوسنا أن ميل وليحن فلا خوف عليهم خوف دشوضي عبس معها ولا هم يحزنون مروغنا دشوضا معها محيليهن أولئك أصحاب الجنة كوا سوى أصحاب تأيدتك جنة إسكالوين جنة والله إسكالان خالدين فيها وكوا ريان جنة الحيوة كوا ريان بأهل ليه محي كوكسبدين جزاء بما كانوا يعملون وسنفلك يا أبا المرنتي بسبب ما كانوا يعملون وحي سمينها هي سببت هذه عملك وناكسنان هي استقامة أي لي مادين أوجد بسدا قمتهم بأهل الله سبحانه وتعالى هل كوحن كوغاني هدي أن الله ما أنه إله أنت الرمين أين أرنت الرمينتا وإيمانك أكتوسنا وإنا وحيالك الإيمان يا الدنيا إلى السمن في المضان يا ما أنت آخر الزمن كانوا سينا لك لتجين
dariiqaas alla inoo jeexay aan ku sugnaanno kitaabkaas munazalka aan ku sugnaanno istiqaamo iyo toosnaan iyo daacad la nimaadno fawaa'idaas faraha badan oo jannadii ugu horrayso ayaynu la kulmaynaa haddaynu intaa uga gudno qodobka labaad darajaat alistiqaama awaluhaa hibaatun cala altawxiid wa baraa'atu min alshirki wa ahlihi yacni darajaadka ugu sarreeya istiqaamada waxa weeye ugu horreeya yacni qofkii tawxiidka inuu ku sugnaado tawxiidka ku sugnaanayo istiqaamo hadduu la yimaado sidoo kale wixii shirki wada iyo alle iyo wixii le iyo ehelkiisaba inuu beri ka noqonayo wadalika cindamaa su-ila abubakr sadiiq arrintaa markii nebiga la weydiiyey abubakr sadiiq radia allahu canhum can alistiqaama toosnaanta markii la weydiiyey qaala wuxuu yidhi anlaa tushrika billaahi shay-a toosnaantu waxa weeye macnaheedu inaadan ilaah subxaanahu wa tacaala alla iyo rasuulka waa shirki inaad ayadaa ugu yira inaadan oran oo dhaar alle adan ku dhaaran aadan cid kale ugu dhaaran buu yidhi abubakr sadiiq waa aadan shirki inaba u la ekaatee wax shirki aadan la imaan ee aad ku toosnaatid ay luzuumu tawxiid alkhaalis tawxiidka khaaliskaa oo baraxa la inaad ku toosnaatid ayaa istiqaamo la yidhaahdaa buu yidhi abubakr sadiiq radia allahu canhu sidoo kale luzuumu alawaamir wanawaahi bificli alamr wa tarki nnahyi inaynu wixii alla ina faray ku toosnaanno oo laasimno iyo awaamirta alla ina faray nawaahida alla ina ka reebay iyo ficilkeedana inaynu ka tagno oo aynu ka dheeraanno iyo nahyiga alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ina ka reebay wahiya itibaacu daacati waijtiraami macaasi oo taas macnaheedu yahay inaynu daacada alle raacno wax allaale waxa macaasidaana aynu ka tagno sidaasaa macnaheedu waxa weeye istiqaamada macaanideeda ka mida weeye wadalika waxa weeye bilizuumi daacati fii kulli alaxwaal mar kasta iyo si kasta iyo xaalad kastoo aynu ku sugannahay inaynu laasimno ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala wax allaale wixii nacfi iyo khayr ku jiro inaynu laasimno inaynu ka tagno wax alla wixii macaasi ah iyo muxaramaadka innagoo taxqiijinayna hibaata calaa daacadii inaynu sugnay sidaas haddaynaan yeelinna sifaadkii baynu ku dhacaynaa mudabdamiinta ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala haddaynaan ku sugnaan istiqaamada waxaynu ku dhacaynaa sifaadkii lagu yaqaanay munaafiqiintu alla ku sheegay subxaanahu wa tacaala oo uu yidhi mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa'i munaafiqiinta xaalkoodu waxaa weeye istiqaamo lama yimaadaan daacana kuma toosnaadaan marra xaggay la jiraan marra xaggay la jiraan dhexdaasay ordayaan oo wareegahayaan oo mudabdab ku yihiin baa alla inoo lagu ceebeeyey sidoo kale rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay yacni munaafiqiinta aan toosnayn oo istiqaamada la imaan oo mudabdamiinta sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam calaamaadka lagu garto inoo sheegay aayatulmunaafiq halaaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa xadada kadaba ilaa markuu yacni warramayo been buu la imaanayaa wa idaa wacada akhlafa mar alla markuu ballan galana ballantii waa burinayaa wa idaa tumina khaana muttafaqun calayhi haddii la aaminana khaa'inimuu samaynayaa iltizaam iyo istiqaamo midna lama imaanayo sidaynaan kuwaas ugu dhicin waxaa layna ka rabaa inaynu istiqaamo la nimaadno joogtaa haddii kale dadkaas aan meel la ku signayna marba dhinac u ordayo munaafiqiinta calaamaadkoodii baynu yeelanaynaa weeye sidoo kale marka la soo aruursho istiqaamada hiya ikhlaasu tawxiidu lilaah waa ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa oo khaalisa oo barxala oo shirki la-aana inaad mar walbaba la timaadid weeye wa tarku nawaahi nawaahidana aad ka tegtid wahibaatu calaa daalika taas tawxiidku aad ku sugnaatid iyo nawaahidoo laga tago istiqaamadii lala yimaadana middaasaa waxay tahay yacni hibaadka iyo sugnaanta ayay noqonaysaa markaasaa waxaa la rabaa fa hiya jamiicu alaxwaal alinsaan mar kasta iyo xaalad kastaba qofka insaanka ku sugan yahay xaaladaasaa laga rabaa min alaqwaali walacmaali wahibaat alla wixii qowl imaanaysa qowlkaagu mid mustaqiima oo toosan waa inuu noqdaa waxalla waxaad xaalad ku sugan tahay xaaladaada mid toosan waa inay noqotaa
دقنانشو يسقنان وإلى مر البابا كسوان تاي يعني استقامة تتضمن عدة الأمور أمور بضم بك كوبان تاي وقول رئيسه إفراد المعبود إفرادة من الأفعال والأقوال والنيات يعني وحل دونه إيوه وأقواشا في عنا إيوه وحيالها أفعاشا وناكسنا إيوه وحيالها نياتك وناكسنا إيوه إخلاص لله إن المر والبابا التي مادد وكسوان شريعة إيوه متغنى بالعانتا إن التي مادد اجتهادك يضاعد إلى اجتهاد إن التي مادد أيوه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم ستبدأ قدام إذنك الله قبقها هي استقامة كسوان هذا أيها إليه سبحانه وتعالى سوى رسولك عليه الصلاة والسلام واستقيموا ولا تحسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا تحافظ على الوضوء إلا المؤمن النبي وحليه عليه الصلاة والسلام استقامة الله إمادة مسوكوا بكدان استقامة انت تذكري كدان كلا إمادة ويا واعلموا واحد قاتا أن خير أعمالكم الصلاة أعماشنا من وخير بدن الصلاة ويلي وأيو النبي وإنه الشيخ عليه الصلاة والسلام صلاة إذا صلحت الصلاة صلح سائر عمله أدونك الصلاة شهديها قاكتو وسيدي لو تكنشري النبي وبري صحابي سأنو تكنون أوقات يدي أن تكنون وملتزم كنا قنو ومستقيم أن كنا قنو سيدا كتوسنانو وعوي أعماشا من وخير بدن بين غنيسا سيدو كلام نبي وحي عليه الصلاة والسلام ويسدا مر والبابا أدويسيستيد مركاد ورقة كبحيسيد مركاد ويسيحانيسيد مركاد صوب بحيسيد مر والبابا الساعات والبابا أدويسانيسيد أنا بحفديد قفك الله جهل أبي النبي عليه الصلاة والسلام قفك السجع ومر والبابا ويسدا إنه حفديا ما نقضى إلا مؤمن قف مؤمنا وهذا استقامة ليمين أيام نقولها يا رواه أحمد بسناد الصحيح حديث كاس أحمد يقيك ساسو ساري مركا هلكا واحد كأركتي قفك إن خيرك أو بدن وشيء أو لكو خير بدن وقفك صلاة دائمة أو حفظية أو أعماش خيرك أو خير بدن بالنبي عليه الصلاة والسلام وصلاة أو وقت يد إلى اليوم لنتو كذا قفك وقف مستقيم واستقامة اللي يبدو بنغرية صدق لو يسدي ما في النبي عليه الصلاة والسلام إلا قف مؤمنة وإله إيمان سيء وهذا استقامة الليمين مقرنيسا ساسا لنا كربا مركا waxa weeye waa inaynu mar walba noqonaa sida uu leeyahay Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wuxuu leeyahay in karamada iyo cizigu wuxuu ku jiraa luzum al-istiqama istiqamadu la laazimo oo la daa'imo ayaa cizigu ku jira sharaftu ku jirta oo adii la ku leeyahay ay ku jirta karamadu saas uu leeyahay wa inna Allaha lam yukrim 'abd بكرامة الأعظم من توفيق الاستقامة يعني كرامة كوين إلهي سبحانه وتعالى أدونك لما وافجيه كرامة كوين استقامة إنه اللي ماذا وأي وحاكو السغن فيما يحبه الله إلهي وجعلها ويرضاه وإذا مستقيم نقطة وسناتد وحيالها إلى جعلها ولنبا كسغن وحاول لك ليها ولنبا كسغن لكن هداد مروا البابا داعة الرسول داعة الله وداعة الرسول أتكون وريكتيد وأدمدبدم كتها هذا جيس وريكتيد وعين غني سارن تاسو أرين متقانا مرور البابا عندك ديكوك أنت استقامة ديك السنين هذا قدر استحاده بدون وحوي وسائل التحقيق والاستقامة توصلنا وحيالها حقيقي وربيع محيين وجوب الإمام وغري بالرسول رسولك الله رميو وإنت واجب رسولك إلا رميو إيمان كاسة أغرية تحقيقا محايا لي قد عرف الأمة بجميع الأمور دينهم نبي عليه الصلاة والسلام الأمة دي سوره بري دين تيودا هي أحواش ودا وما يحتاجون إليه يوحى وحي باهيين يوحيي في الاعتقادات والعمل اعتقاد هي عمل كيبا الله نوحي إليه سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إلهي سبحانه وتعالى قول مبادئ يوم أنت لهنونيك بعدي إلهي أيقو أي أرنتي كبيران إلهي إلا براه وحي الله وقع بسن لها إلى الله براه إلهي مبادئ رسولك عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كالنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
waxaan idinka tegay xadiiska saxiixa ah oo ibnu maajah iyo qaybka ay soo saareen waxaan idinka tegay shay cad oo ah istiqaamadaas oo ah daacatu alle daacatullaahi iyo daacatu rasuul ee istiqaamadaas iyo diintaas cad oo kitaabka alle iyo sunnihiisa oo aan idinkaga tegay oo hameenkeedu ay maalintii oo kale tahay sida maalintii oo kale u cad hameenkeena sidaas hameenkii maalinba sidaa u cad ayaan idinkaga tegay laa yaziiqu canha ilaa haalik kamana bayro kamana sambirrixdo ilaa qofka ka bayraa oo istiqaamadaas ka bayra iyo waxaa nabigu uu yidhi waa idinkaga tegay calayhi salaatu wasalaam kitaab wa sunna ilaa haalik buu noqdaa qofkaasi waa halaagsanayaa marka wadaalika jacalnaakum ummatan wasada waxyaalaha istiqaamada iyo haddii ilaahay kuu roya toosnaanta wasaaisha taxqiisa waxaa ka mida inuu yahay atawasud walictidaal inay tahay iyo tarku takalluf iyo quluwiga iyo xadgudubga in laga tago oo wasad cibaadadii laga dhigo mid dhexdhexaada sidoo kale in ictidaal iyo dhexdhexays lala yimaado wadalika jacalnaakum ummatan wasada maxaa laleeyahay subxaana wa tacaala ay khiyaaran wacuduulan dad waxaan ka yarnay dhexdhexaada oo khiyaar ah oo caadiliin ah cuduul ah ayaan idinka yeelay baa laleeyahay subxaana wa tacaala inahaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaalaha wasaaisha taxqiiq istiqaamada yacni xaqiijiyay noqonayaan wey sidoo kale qodobka afraad haddaynu u tagno asbaab almuciinati calayhi istiqaamada maxaa asbaab u ah oo kugu kaalmaynaya inaad istiqaamo la timaadid inaad toosnaatid waxyaalaha inaa ku kaalmaynaya inaynu toosnaano maxay yihiin weeye waxaa ugu horreeya taqwa allahi muraaqabatuhu ilaahay inaynu ka cabsanno haddaynu ka cabsanno ilaahay subxaana wa tacaala taqwadiisa la nimaadno oo alla aan ka cabsanno muraaqabadiisa iyo inuu control ina saaran yahayna aynu ognahay waxay noqonaysaa waxyaalaha inaan ku kaalmaynayaa inaynu istiqaamo la nimaadno waxaa qodobka labaad ah oo inoo kaalmaynaya ducaaullah ilaahay inaynu barino mar walbaba oo aan la alla toogno ilaahay inuu istiqaamo iyo toosnaan iyo daaco alle ina siiyo ina ku sugo inaynu mar walbaba ku ducaysanno ayaa inoo ku kaalmaynaya ihdina asiraat almustaqiim ilaahu nagu hanuuni jidka wanaagsan oo toosan mar walba inaynu nidhaahno oo waxay ku imaanaysaa salaadihii mar walba ay tukanayno waa duco ku dhex jirta oo alla aan baryayno in ilaah subxaana wa tacaala ina ku toosiyo sidoo kale waxaa weeye isticaanatu billaah ilaah inaynu kaalmaysanno wa tawakkul calayhi allana aan tala saaranno ayaa istiqaamadii inaan ku kaalmaynayso muciin inoo noqonaysaa sidii cabdullahi ibn cabbaas radi allahu canhuma uu leeyahay ixfid illaah yaxfiduka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku ka warinayey ilaahay xifdi asaguna waa ku xifdiyayaa istiqaamadii la imow laazim toosnaantii markaasaa ilaah ku xifdiyaya subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaa weeye qodobka afraad dalabulcilmi sharci ay cilmu nuur haddaynu dalabulcilmi noqonno cilmiga nuurka ah oo diinta allah aynu baranno istiqaamadiibuu inoo ku kaalmaynayaa toosnaantiibuu inoo ku kaalmaynayaa daacadiibuu inoo ku kaalmaynayaa daacatullaahi wa daacatu rasuul buu inoo ku kaalmaynayaa sidoo kale lizuum alrifq saalix inaynu dad rufaqaa samaysanno oo saalixiina oo dadka mufsidiinka ama fasaadka wada ka fogaano oo aan dadkaa la saaxiibno jaliisu saalix nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka yacni aada loo ammaanay jaliisu saalixa ah oo haddii la kuuraya dadka wanaagsan aynu rufaqa iyo saaxiibba ka yeelanno iyaduna waxay noqonaysaa istiqaamay noqonaysaa istiqaamada inay ku kaalmaynaysaa weeye istiqaamada ayaynu ku kaalmaynaysaa inaynu rafiiq ka yeelanno dadka war wanaagsan ilaahay diintiisa ku dhaqmaya toosan waxa xun ka toosan waxa wanaagsanna ku toosan mar walbana meesha lagu hayo khayrka soo camira mar walbana khayrka u taagan ayagii naftoodana ugu taagan qayrkoodna u sheegaya dadka ayagaa na rufaqa inaynu ka dhiganno waxay ina ku kaalmaynaysaa inaynu istiqaamadii joogtayno sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha inuu ku kaalmaynaya acmaalu saalixa min albir alwaalidayn wasilat alraxm wagayraha wa kahrat alnawaafil waxyaalaha istiqaamada inuu ku kaalmaynayo waxaa ka mid ah inaynu la nimaadno acmaal wanaagsan oo ay ugu horrayso bir alwaalidayn labada waalid inaynu baarinimo u samayno oo aan adeecno waxyaalaha istiqaamada inuu ku kaalmaynaya ayay ka mid tahay weye silatu raxm
رحمكي إنا نحريرنو يو غيرها وحي لمدا أيضنا وحيالها استقامة إنا كالمين أي كمدهين وإنا توصنا مرنا إنا نقيسنا كل أحن حيالها إنا كالمين أي كمدهين وي وكثرة النوافل نوافل شيء سنين كسلادها سنن كسلادها إنا بدينو أيضنا وحيالها استقامة إنا كالمين أي كمدهين ده أنت فرنك تكتي إسكبهدين هذا النوافل شيء بعد كتكتي تهجدك هذا نسوته سينما وترك هذا نسوته سينما وحنا لا يمال نوافل شيء بعد كتكتي نوافل شيء أفرح بدن صلاة الأضحى صلاة قداش هذه نوافل شيء الآديات كأخير وأجر قبلنا إن الله نبعنا وحاصل وحين نكون كالمينيان استقامة نكون كالمينيان وحكم إذا وحيالا استقامة نكون كالمينيان توبة النصوحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة توبة دبعة ونصوحة وشروط هذه وضعتها وشروط هذه لا أفر شردي بقوة وين وإنها تكفق ذي وحي أتكترتي بجاب لان هداد هاي بجاب كينات هيرتين ويس أسترتين هداد ميلك لا يقبل فلك لسمين شرتي إنها تكبح ذي وكفق ذي هداد ضد حنا لسعون شرتي ولا رغم تشدي إنها تكهرتي ودفك وناكسين وصوت الماني أذرع عديد توبة كاسة أبوه الرئية إنها تكفق ذي وحي أتكترتي نوع عندوني بهالنقدين اللي معها توبة مركز لقاها الله اليوم يعني قال معها قفك اللي توبة كان ويا النبي عليه الصلاة والسلام باوع لها أنا مالتي إني أتوب 100 مرة في اليوم مالتي وحن توبت كنا بقول شير روايات كلا تضباط شير بان توبت كنا يا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ودم بيجي هراء يكيد دم لبض ولا رافي ما قرنا يسايا توبت كنا توبت كنا الذنوب بقى عيسى إنسان ما تهاي إنسان واحد لو يروح المان كهلمان بدنه مركل إنسان كما دابع تهاي واحد بدن هلمان كديد واحد بدن كوكب الفري كديد مرة والبا توبة النصوحة لقاربا يا لقاربا وين توبة داس مركل هذا حكم فقدين أيران وأنا جوستين أن لا تعود مرضا بين هذا النقل إن العزيمة داس لتمادد أيا لقاربا وإن هذا النقل توبة داس نروح كوكا المين ساشرود دير وضعته أيضنا استقامة ذا قضب سدحها وتوبة شرود دير كم ذا وحوي نظام إن شليت تديد وحي أسوام مرتي حبا كاد عي دمي با كاد عي شليتن باللقاربا إن إلهي سبحانه بيسد باللقاربا إن إلهي سبحانه وتعالى إله قرف تراهي باللقاربا هذه الشيرين الدمي قاعد يسد باللقاربا شروط داس مركي إليه هاي رد المظالم بعد يا شردي وقدم بيها هيا لا وحي في الماء إنسان كإيمانين وفي الماء كان عين المضوى وين تهاي ويها في الماء كان عين ويها في الماء كان عين إله بالقدر وبالكنيسة لكن ويها في الماء كان عين إن كان نقطة رد المظالم وحي لها يعفيها أترادين وحي أتكبر شيء ولا نسعفينا أترادين وحي مال هي سيدات كقبض فرشيء إن أترادين هدي لا يكون هي وحي لها واهي كانوا مالكين واهي وينعلن إياه أن نسعفينه سيداس طوبة داسنا وحي كم انتهي وحي لها لوكال ميسانة يو استقامة أي كم انتهي وحي كم انتهي وحي لها استقامة إن تشوكتي سيدكو قال قراءة القرآن الكريم وتدبره قرآن كينا أخريد ما ننتي وحون إن أتقوستيد إن أخريدي همينكي قرآن كينا وحكا أخريدي إن هذا نسكا أخريدين آيات دانا أخريدي سين أتكو تدبدين وواحد شيء سندنستيد وواحد شيء سكوفا كرتيد وواحد شيء سأيكو بجسون وواحد شيء سأيكو فرحسو هذا يتنا شيء سيدا سالغا ربا إما إن نسكا أخريد سيدا كلا قدر كلا وحوي كثرة الذكر ذكر قال إن بدي سيدنا ووحيالها استقامة إنه كالمينيا اذكر الله ذكرا كثيرا بأل لي سبحانه وتعالى مر البابا إله حس سبحانه وتعالى حس ربنا يذكري ذكرنا الله إن القرآن كيس أخذ سبحانه وتعالى ومر البابا ذكري كيس الله ذكري الله إن تسبيح التي مادين إن هذه تهريش التي مادين سبحان الله ترادين إن تهليش لا إله إلا الله لا إله إلا الله التي مادين إن تدي لا يكون هاي أدمر باستغفارتي أستغفر الله أترادين إن أترادي تحميدي الحمد لله ذكرك على ساعة وكقضية هاي نبينا إن بدل الشعري ذكرك على قفك مسلم كائن الرمر البابا عرب يسين كقضية هاي عرب يسوع كلام سنوب النين كاو بدنية هاي السجن وحوي ذكرك على وحين أقول كلمين يا إن متوسنا الله أطيعنا رسولك سادعنا سبحانه وتعالى
وحكم ذا وحيانا إنه كال مين يا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه وحنا إنه أرنا معروف وناكسن إنه ضد كفرنا وهذا لا يرسن وهذا يريسن وهذا نسأل محمد تقانيد ويسن كل فضان وعوير بدح إذا أكتاذ هدي القعنية وحلقعنية الوعبية إنها تلاهديد معروف كيف الرداء تلاهديد بدح وحلقعنية مدكتا وحلقعنا بسم الله قفقة السهرا أنس مركو توبره النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك ساس كتب النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك أنا الصوم غلام ويل كيرايو وعد يشاء مركاد وحوني سيد بسم الله يرتكب بلو وشيطان كيسكفوجي مدك تنكعن إن عكو حيجنا عن ميلو البهادنا آداب وحعنو إن عقيق كحيجا عن ساس النبي عليه الصلاة والسلام مركا الأمر بالمعروف أوير إن القفت لهذه مدك توحكو عن أو مدك توحكو قابصو أو مدك توحكو قاضو أو مدك توحكو السلام أما سيدا هنا تلاهي بأوير إن هذا لا يرسل بالله ربا سيدا كلا ونهي عن المنكر بدح إذا هدو حقوقاته والكذا بدح ومن هي بدح إذا وحيالها كلا إسكالي هذا هاي ومقرن إنسان نظافتي يدوسي يوحاس إسكالي هذا هاي مركزات الشقوين كليهين النبي عليه الصلاة والسلام نبي كوير مدك تقول عنها ما أوديري إذا من لها أود برسولك عليه الصلاة والسلام أفضل بمعلنا واقع الشيء بدح يمدك تقول رسولك عليه الصلاة والسلام بأن كربري مثل بشغلة إلى هذا هاي محاس دعي والله بدأ يدق عنه محار دعي مركز حنيسيد هداد هندستي الحمد لله بالغربة السوري إنا تراهيد مركز حنيسيد أرنتاس وأرن وحوي ميلك الوافقسن التزامكي استقامتنا وكسور جدا والسوري إنا تراهيد مركز ديلا كوري هندستي ما الحمد لله إنا تراهيد مركز حيارها السودان وحوي وحي منهينا ومنكرا إنا نهيد غيرك كنهيد سيوحي أذكرت بالشدة كلا كنهيد adigoo adeegsanaya xigmad adigoo ma garanaysa adeegsanaya dariiq toosan ayaduna waxay kamid tahay al-amr ma'ruf nahy al munkar hadaynu la nimaadno waxay kamid tahay waxyaalaha loo kaalmaysto istiqaamada iyo toosnaanta idaacatullah idaacatu rasuul waxyaalaha loo kaalmaysto ayay kamid tahay weey sidoo kale dacwatu ila allah intii inaad faafisid ma garanaysa haba yaraatay wax yarba ha noqotee inaad faafisid xaadaradan joogtada ah oo jamco walba oo ilaahay noo fududeeyay oo ilaahay noo sakhiray oo imkaaniyaadkeeda u dhanyihiin oo mar walbaba inta yaroo tawciyadahu ay anfacayso adduunyo aakhiraba kii jeedinaya iyo ka dhageysanaya iyo kii kale hawl kale ka qabanaya iyo kii diyaariyay iyo intaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa ayna wax kale ka rabina abaal iyo thawaab ilaahay agtiisa uu ka siiyay arintaas dacwo ila allah haddaad qof ku soo xirtid oo aad keentid هذا كورنا محمد وسشيغني هذين اتصال الفرد السميسيد وقف كسر حرتيد ودعوة إلى الله وقف كاسو بعد غيابا من كلنا آدلها حنبذ إنه سمين لها ملك الله فعلا إنه آدلها ومتك لو جليس صالح أنا هين هو قف مارت صالح والله فريستقي صالح غير كيس والله فريست إنه آدلها قف كوا توكل ما يسمى شيء خير وأنت إنه كنا جينا هاي وفدينا ملائكتي يا خيركي أنت بكل سنة الساقف كاد كسر حدد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحكم إذا وحيالها إنه كان ما يسنن استقامة تفكر في مخلوقات الله إنه كفكر إنه مخلوقات الله إله مخلوقات كيس سبحانه وتعالى سيدا يهين سيدا عقب أبوري سيدا نلقب أقبلي سيدا إله سبحانه وتعالى وكون كانوا سميي سيدا نلقب إنه أبوري سيدا بس معي بس كانوا سميي سيدا إنه كنا معي سيدا الإنسان كانوا كدغي سيدا هدي له كورا يهي أحسن التقويم إنه كأبوري سيدا هدي له عقل إنه سيي سيدا يري هدي له كورا يعني وحاصل إنه كفكرنا أيها واحد كم انتهاي أتكفكر تيد مخلوقات كاس يعرف يبلك هو وين يضيح إياه يقرح ذا إن كفكرنا سيدا الله سميه بالقرح ذا أنا كرت هاجن وإحنا يعرف أنا كرت هاجن ووحي يا إسجرين أنا أتكفكر تديها هي أو ود النوع أسوأها يسعرك أنا مرة بكفكرنا أيضا واحد كم انتهاي عيالها الله قال ما يستو استقامة ذا يتوسنانتا سيدا كل واحد كم إذا أن تذكر الموت والآخر يعني قفكو إنه حسوسته مر البابا يا استقامة الوكال ميستا جيريدا يا آخر جيريدا آخره مربين كور رميدنا إن شاء الله تعالى أحوال القيامة يوحيان الله كل ما هي
iyo waxyaalaha ku jira iyo dhibaatada taal meesha ama khayrka yaal qofka alla fududeeyo ama qofka ku gabadfalo adduunyadan isku ilaawa waxa yaalla inuu qofka ku fakaro in geeri imaanayso haddii mar kastaba la iska kaadaayo weligaa aadan joogayn oo waarayn ee mar aad dhadhaminaysa kulla nafsin daa'iqatu lmowt inaan ku fakarno sidoo kale aakhara waxa yaal inaynu jamciimkii fariiqo jaxiimadii ay taal iyo naartii ama jannadii iyo naciimkii ay yaaleen iyo nicmadeedii labadaas inuu qofka ku fakaro oo mar walba fakarkaas aad ku fakartidna waxyaalaha waxa weeye inuu ku kaalmaynaya ayay ka mid yihiin istiqaama inaynu toosnaanno daacada allena ku toosnaanno iyo daacata rasuul calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah muxaasabatu nafs waxyaabaha inuu ku kaalmaynaya waxaa ka mid ah muxaasabatu nafs nafta in lala xisaabtamo oo aynu la xisaabtanno oo nafta ina nafsa lamaaratin bisuu nafta xumaan waxaan ahayn amri mayso waxaan xumaan ahayn wax wanaaga ku amri mayso naf iyo shaytaan labadaas yaa lagu raacashay dagaal joogto ah baa ina ka dhexeeya nafta inaynu la xisaabtanno maanta maxay ku gabad fashay maxay khayr fashay maxay hadi hagaajisay seebay wax tiri maanta xaggee martay mar walbaba inaynu xisaabta inoo taagan tahay saynu aakharo inaynu tegayno inaynu ku badbaadno ma garanaysaa oo aakharna ay taal fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir yacni janno iyo naar labadaa dariiq inay furan yihiin mar walbaba inaynu ku fakarno sidoo kale waxaa ka mid ah nadru fi siirati rasuul sala allahu calayhi wasalam inaynu mar walbaba fiirino rasuulka siiradiisii calayhi salaatu wasalaam iyo siduu xaalkan usoo waday iyo siduu dacwadaa usoo gutay iyo sidii loogu dhibay iyo waxyigii usoo degay iyo wa qiraa'atu kutub salaf iyo salafkii salafu saalix salaf hada lumma yacni saxaabadii ka bilow taabiciintii ku xiji taabicigii ku xiji fuqahadii imaamu shaafici raximahullah iyo raggiisii ku xiji waxaasoo dhan salafkan kutubtooda inaynu akhrisanno wanadaru fii xaalatihim wa axwaalihim inaynu fiirinno xaaladooda see waxay soo qori jireen see diintii u faafin jireen madharag bay ku soo barteen diinta madharag bay ku faafin jireen khawf maxaa jiray gaajo maxaa jiray maxay la kulmi jireen coli iyo ghazawaad maxaa jiray jihaad maxaa jiray waxaasoo dhan inaynu akhrisanno ku fakarno ayaa la rabaa sidaasaa marka waxay noqonaysaa iyaduna haddaynu siirada fiirinno waxay noqonaysaa aan ku fakarno iyo waxyaalahay ahaan jireen dadka salafka ahaa khayr ka badnaa oo nebigu yidhi khayruulquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum qarnigaygaa ugu khayr badan aniyo saxaabadaa kabacdina dadka quruunta khayrka badan waxaa ka mid ah taabiciintii kabacdina qoladii saddexaad taabiciintii sidaasuu nebigu yidhi dadka quruunta khayrka badan baa salaf la yidhaahdaa salafkaas saalixa kutubtooda iyo siyarkooda inaynu akhrisannona waxyaalaha istiqaamada iyo toosnaanta aynu ku kaalmaynayo ayay ka mid yihiin waxaa ka mid ah lusuumu lmasaajid fi salawaati wa duruus alcilm yacnii in masaajidda iyo meelaha duruusta iyo cilmiga sharciga uu ka socdo in la laasimo oo la joogteeyo waxay ka mid tahay waxyaalaha inuu ku kaalmaynaya istiqaamada ayay ka mid tahay weyn waxyaalahaasaa ka mid ah haddaynu inahaasoo dhan xifdino oo waxyaalahaasoo dhan aynu xifdino oo aynu sidaa maarata u joogtayno waxaan ilaahay idinkuu noqonaynaa dad istiqaamo la yimid oo toosnaaday oo daacatullahi wa daacatu rasuul ku toosnaaday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala badbaado agtiisa ka rajaynaya oo ilaahay ka cabsada baynu noqonaynaa istiqaamadiina la yimid oo toosnaanay ayaynu noqonaynaa qodobka shanaad haddaan u gudba wuxuu noqonayaa min thamaraati alistiqaama faa'iidada ka dhalanaysa haddaynu toosnaanno oo istiqaamo la nimaadna maxay tahay qodobka ugu horreeya wuxuu noqonayaa al-amnu fi dunya waalaakhira adduun iyo aakharaba inaynaan baqina amni hello oo aakharana adduunna amni ku helno iyo istiqraar iyo maciishad wanaagsan iyo bogaadin aynu ku helno aynaan cabsi ku noolaan aakharana naar aynaan ka cabsanaa amni ka noqonno ayaynu ka faa'iidaynaa haddaynu toosnaanno oo ku toosnaanno ilaahay daacadiisa iyo rasuulka daacadiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu horreeya al-amnu fi dunya waalaakhira inaynu aamin noqonno adduun iyo aakhira qodobka labaad wuxuu noqonayaa oo thimaarta ah oo midhaha ka dhalanaya istiqaamada adaa ulammaana ammaanada maanta aad aragteen oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka warramayo cirkii diiday oo dhulkii diiday oo insaanku iska xambaaray ammaanadaasoo sida la moodaya aan ahayn innagoo aynu u sawiranayno xoogaa laysu dhiibtay lacaga oo ammaano la yidhi iyahay aan ahayn yaa ka guda weyn wax kasta ammaano naftaadu waa kuga ammaano
haddaad la aadid meel jaxiimaha ay kugu ridaysana ammaanadii waad ka baxday haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa iyo wuxuu raalli ka yahay aad ku xakamaysidna ammaanadii waa ka soo baxday waxaa ammaanaha sixada alla ku siiyey caafimaadka alla ku siiyey waa ammaano siday u yihiin inaad ugu shukriyeed baa lagaa rabaa waa ammaano awlaadda alla ku siiyey waa ammaano dariiqii ilaah u jeexay iyo itibaaci rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaad ku hagtid baa lagaa rabaa waa ammaano dariska kula dariso waa ammaano inay bawaa'iqdaada iyo shiddadaada iyo sharkaada ka nabadgalaan baa la rabaa wixii khayrana aad ku taageedid baa lagaa rabaa waa ammaano yacni ammaanadu wixii ammaanaha oo lagu dhiibtaa waa ammaano wadaaco yacni inaad diintii xambaadhido ilaahay kitaabkiisii kuu soo dejiyey islaamnimadii iyo shahaadadii waa ammaano shahaadadii inaad ka soo baxday markaad shahaadateynka ku dhawaaqdeen ammaano wixii ka dambeeya oo diin ah inaad ku dhaqantid waxaa weeye ammaanadii baa lagaa rabaa inaad gudatid waxaad tihi ilaahay baan rumeeyey rasuulkiisana waa rumeeyey iimaan buuxaan la yimid haddii waxaa lagaa rabaa muqtadiyaadkii u keenayeen shahaadateynku ay keenayeen inaad la timaadid waa ammaanow ammaanadu markaa aad bay u gudan weyn tahay adaa-ul ammaana qofka haddii la yimaadana ayana waxaa weeye timaarta ka dhalanaysa inuu la yimaado qofka ilaah u fududeeya ammaanadii waa waxyaalaha fawaa'idda aynu ka helayno istiqaamaday ka mid tahay wey waxaa ka mid ah itqaanu lcamal camalkii in la sugo oo acmaashii aad sugtid waxaa weeye istiqaamo markaad la timaadid waxaa ilaahay kuu sahlayaa camalkii aad falaysay oo camalfalkaa ilaahay subxaan mid itqaana ah oo aad sugtay inuu noqdo ayaa ka dhalanaysa wey sidoo kale aadaa alxuquuq xuquuqda lagu leeyahay oo nooc kastaba ha noqotee oo xaqa ilaah kugu leeyahay uu u horreeyo inaad gudatid ayaduna timaarta ka dhalanaysa istiqaamada markaad la timaadid iyo midhaha iyo fawaa'idda ay dhalayso ayay ka mid tahay weeye saasay ka mid tahay weeye inaad haddii ilahay kula gudatid sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha fawaa'idda waa istiqaamadu keenayso waxaa ka mid ah xusnulkhuluq ile waxaad og tahay taqwa allahi wa xusnulkhuluq waxaa lagu helaa waa janno ilahay in laga cabsado akhlaaqdaadana ilahay hagaajiyo oo ilaahay xusnulkhuluq ku siiyo akhlaaqdu wax qaaliya weeye marka ilaahay subxaana wa tacaala istiqaamada haddaad la timaadid xusnulkhuluq buu kugu bedelayaa inaad akhlaaq wanaagsan la timaadid ayaa ka dhalanaysa weeye marka qofku hadduu akhlaaq yeesho wanaagsan intiisa kale waa hagaagayaa waxa weeyana waxyaalaha jannada lagu dhexlo ayay sida axaadiista kale sheegaysa ayay ka mid tahay weeye sidoo kale waxaa ka mid ah maxabatu min allah caza wajalla wa min annaas dadka alla inuu ku jeclaado ayaa ka dhalanaysa dadkuna ku jeclaadaan haddaad istiqaamo la timaadid ilaah subxaana wa tacaala raallu kaa noqonaya waana ku jeclaanaya ummadduna raallay kaa noqonaysaayo waa ku jeclaanaysaa waayo waxaa tahay qof toosan oo ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa ku toogsan oo aan ahayn qof dhibeed ayaad noqonaysaa wey waxyaalahaas fawaa'idda oo dhan baa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaysaa midhaha ka dhalanaya ka mid ah raqdul caysh cayshada maciishadda iyo risqiga in risqi bogaadin leh oo lagu bogaadiyo oo barako leh in ilaah ku siiya subxaanahu wa tacaala baa ka dhalanaysaa sidoo kale waxaa ka dhalanaysaa tawfiiq min allah ilaahay subxaanahu wa tacaala caza wajalla inuu mataqaanaa umuurtaada o dhan raalli ka noqdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda ku waafajiyo oo ilaahay xaggiisa tawfiiqda kaa waafajiyo inaad la timaadid camal wanaagsan weeye sidoo kale waxaa ka dhalanaysaa atacaawun wa taraabud almujtamac wa tamaasukuhu yacni taraabud in la isku xiraado iyo tacaawun iyo istiqaamadii waxaa ka dhalanaysa midhaha ka dhalanahaya in la iscaawino la isu kaalmeeyo oo la isu kaalmeeyo sidoo kale in la isku xiraado oo mujtamaci isku xirmo ayaa fawaa'idda ka dhalanaysa ay noqonaysaa baa weeye sidoo kale waxaa weeye cilmu naafic in ilaah kugu hanuuniyo subxaanahu wa tacaala wattaquu llaha wayucallimukum allah sida allaba u leeyahay ilaah ka baqa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idin barahayaayo dariiqa xaqa iyo cilmiga saxda waa idin barahayaayo waxa weye ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada markaasna cilmigii alla raalliga ku arba alla idin barahaya subxaanahu wa tacaala marka waxa weeye waxaas oo fawaa'ida ayaa ka dhalanaysa weeye camal jaad camal sax oo jaad oo dhab ah oo jiddiye ah ayaa ka dhalanaysaa in haddii ilaahay ku rayo tawfiiqda ilaahay ku waafajiyo ayaa ka dhalanaysaa camalkaas jaadkaa ka dhalanayo oo dhabta ah oo jaddigaa ka dhalanaya marka istiqaamadu waxyaalahaas faraha badan ayaa ku jira wey oo aadka u faraha badan ayaa ku jira waxaa ka mid ah wasaa'il ithibaat qodobka lixaad yacni istiqaamadii
waxyaalaha lagu sugnaado oo thibaadka iyo sugnaanta keenaya maxay yihiin weeye iqbaal waxa weeye iqbaal cala alqur'aan alkariim qiraa'atuhu wa tadabburuhu wa camaluhu qiraa'atan wa tadabburan wa camalan يعني القرآن كي يكتاب كأن إن تقابل شمال هذا كتورين ووصل مهجور نقول أما المرك بالله كامر سوق قادم هذا إقبال رسمي وقسم يسوق بشد وحزبي وحون جوستيد إن ما ننتي أخريد إن برتيد إن قراءة سبرتيد إن كتب بدو كفة كديد آياتها القرآن كا إن دخل جلس في الشيء وعويه وحيالها ثبات كا استقامة كينا هي سجنان هذا كينا هي أي كم تهيوي محايا على القرآن كي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بها سبحانه وتعالى قرآن كانوا وعقوقها نورية وعقوق آذنية وعقوق حينية مدة توصن تبت توصن أي عقوقها جياوي تاس أو سدا أو جد أي قرآن كي وحوي هدي أخردين وسيد بالآخرين وتكتب دبلين وكعمل فرشيد وحوي تلك توصن أيوه وتوسنيا ويتبت الصوصن أيوه هو هجياوي ثبات الاستقامة أي كيني سعرن تاسوي سدوك على التزام شرع الله وإكثار من الأعمال الصالحة أعمال صالحة هي شرع كل لازمتي شرع قال إن لازمتين إن مرتقى أعمال صالحة بتستين أيضا وحي كيني ثبات استقامة إن تسكناتين ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا لله سبحانه وتعالى وحي لهي سويا وقولك السوبان يقولك صحة أو ثابت كسويا الدنيا خرابة قول داس إله مي هدنا قولك ثابت كلي من وجوبتي ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ذاتك الظالمين تانا الله وبعضين ومن يبع الله سبحانه وتعالى سدوك لوحا كم إذا وحيالها الوسائل كالواحد يكسر ثبات استقامة إن لقصقنا قراءة السير الأنبياء وقصصهم وتدبرها يعني إن آخر المرء والبابا سيرة أنبياء قصص كودي إن كتتبرد أيا يذن كنيسة مقرنسة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وإله إليه سبحانه وتعالى يعني إلهي وأنا قصصنا هي سوشي أنبياء دي قصص كودي إن آخر أيها الله نكرر سيدو كلا كثرة الدعاء بثبات إن أدمر والباب إلهي إنه استقامة كسرنا إلهي كبريد أيها كبدا سيد النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وقد عيسين جري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلبك قد يوم قلبك قد دينك كسر استقامة كسر سيد النبي أرجل وكلام أيها إننا الله نكرر إن أدمر والباب أي نسداس أي نسمينه كل علينا سيدو كلا وعكمدا كثرة ذكر الله إلهي ذكر جيسا مر بابا إلى نكال ميسننا وحكم تاي وسائل كاثبات استقامة إن كسونات هو كالمينه ويوي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الفئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وردولك إله رميي الله يرسل رمييدو هداد دد عدو عدو الله كلتان سقنادا على ليه واذكروا الله إلهنا حسا كثيرا انبضا لعلكم تفلحون الديبان إنسان وحقيقتين الديبان إنسان بأهل الله سبحانه وتعالى سيدو كلا وحا كمدا حيالها وصايش ثبات استقامة يعني نقول كالمين هي اتباع السنة وهدى السلف رحمه الله سلف كأنه نفراعنه وهو طريق أهل السنة والجماعة طريق أهل السنة والجماعة وإنه نفراعنه ذاتك سلف كاها إيوه سنة هذه طريقة أهل السنة والجماعة وسيدا سوي سيدو كلا وحا كمدا تربية الإسلام الصحيح يعني تربية الإسلام كصحيحة إنه كبر بارنو المهن كبر بارنو أيها وحا كمتاي ثباتك يوحيالها سجنان كينية الإيمان الصادق وتصديق إيمانك الصادقة كينية مقرنسا ممارسة الدعوة إلى الله أيها كينيسا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه نتوقتينه إلهي دعوة ديسا أن شيدينه أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أين المرة كدقين مرة أين نقول مر البابا أين تشوكتينه أي كم ذا عيالها ثبات كينية أي كم تهوي أيضا وحا كم ذا سيدو كله عيالها سنان تكينا صبرك واحد إلى صبرك إن نصبرنه أو كصبرنه
waxyaalaha istiqaamadu inaynu istiqaamo keenno naftu ma ogola inuu istiqaamada laazimno shaydaankuna ma ogola marka waxaa layna ka rabaa arrinta inaynu ku sabrno oo sabr ma garanaysaa iyo wacadam isticjaal inaynaan degdegin iyo ixtisaab ajri gurubsi innagoo u jeedna intaasoo dhan waa inaynu ku sabirnaa arrintaas waayo alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waalcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr yacni marka alla ka warramay oo ku dhaartay zamankiisa mid ka mid oo casrka ku dhaartay insaanka oo dhan khasaare inay ku sugan yihiin afar qodaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimid wacamiluu الصaalixaati camal saalixana la yimid kuwa baa laga soo reebay iimaan waa laga soo reebay qoladii la timid camal saalixa qoladii la timid waa laga soo reebay haddana watawaasaw isu dardaarma bilxaqi xaqa isku dardaarma watawaasaw bisabri maxal shaadka halkan weeye watawaasaw bisabri sabrkan isu dardaarma marka inaan ku sabirno istiqaamadii ayay waxay keenaysaa inaanu istiqaamadii joogtayno haddaynaan ku sabrin oo sabr la imaan waxa weye istiqaamadii ma daa'imi karno mana sii wadi karno alla aayad kale wuxuu leeyahay inamaa yuwafa الصaabiruuna ujuurahum inamaa yuwafa الصaabiruuna ajruhum bigayri xisaab alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dadka haddii ilaahay kuu ron yahay loo oofiyaa waxa weeye saabiriinta ajrigooda waa loo oofinayaa oo waxa weeye bigayri xisaab xisaab la-aan baa loogu oofinayaa alla wuxuu leeyahay aayad kale wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilqadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha allah naftaada nebi allow ama ayuha almukhaatibow la sabr kuwa ilaah baryahaya subxaanahu watacaala aroortii baryahaya maqribkiina iyo galabtiina baryahaya ilaahay bay baryayaan wajhullaahi bay baryahayaan ilaahayna la kulmaan oo wax wanaagsan kula kulmaan bay baryayaan sidaas ula sabr baa alla leeyahay subxaanahu watacaala marka waxaad og tahay istiqaamadii haddii aadan ku sabrin dee istiqaamadii waxay noqonaysaa mid haddii ilaahay kuu ron yahay aadan ka dhabkeenin weeye oo aan mirihii dhalin weeye يجب لزوم الصراط المستقيم وحواجبنا كوا طريقة توصل إن المرء والباب لازمنه وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون الله وحده سبحانه وتعالى وإن هذا صراطي مستقيما شدبا الله شدكي واكات وسموي فاتبعوه راعة واستقام الله ماذا ولا تتبعوا السبل شدتك كلاه ولا لحظة oo ka leexda jidka toosan ha raacinina fatafaraqa bikum an sabiil oo marka jidka in la kala tagaan daalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun sidaas aad aragteen ba Allah inoo dardaarmay subhanahu wa ta'ala waxaad mudantiin inaad Allah ka cabsataan yaad mudantiin weey haddaan inta uga gudbo waxaan u gudbaynaa qodobka ah oo u dambeeya insha Allah ta'ala oo ah maxaa laga toosayaa maxaase lagu toosayaa baan in yar ka oran doonaa maxaase lagu toosayaa waxa laga toosayaa oo ugu horeeya waxyaalaha aynu ka toosayno waxa ugu horeeya waxa weeye beenta ayaynu ka toosaynaa waxa geebaynu u toosaynaa waxaan toosaynaa runta nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa inoo sawiray oo wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu rajulun yaktubu inuu been sheegayo qofku ka zuulimayo ma garanaysaa marna ama rasuulku riwaayad kale calayhi salaatu wasalaam ما قرنسا إن الكذب يهدي إلى الفجور يعني وحو فجور كذب وحو وهنونين فجور كي خير درها ما قرنسا ولا يزال رجل أن يكذب يعني قفكنا مرنا كزول ما يقولوا بين شيء يوم ما قرنسا حتى يكتب عند الله كذابا إله كاوتش قال الله وقره إله يكتب مركو تقو وقفك بين لغة كذاب كاها وأدونك بينتك سوى شيء جري وبين لغاها وبينتك الشيء إنه عباداتي استقاماتي سيدنا بقول يمادو إنه خير كي سيدنا بقول يمادو إنه وحي هلك قصة كنت شفتوا بحالي هذا سيس هذا وصحبتها ما قان لكن علي هذا الشيخة هي وحى يمد نبى يمد وعي الشيخ وحنا هاي نن خير تهلو ابتلاي ووحوي مر والبابا وحوي وحن كلعة دمي ذنوب تواوينها زندي بان كلعيا بنتي بان كلعيا قتلي بان كلعيا يدلكي سرقدي يتوغدي بان كلعيا وحوي الشيخ ويدر دارنا محان سمح هذا يقول الله وحوي كل وقت سماه إنك الشيخ حكمت باستعمالي إلى يكون في أي وحوي كل وقت سماه وحسكحت
waxaan sameen laakiin hal bayna labadeen isku ittifaaqaynaa waxaan ka rabaa inaa shardi ila gashin shardigaasi wuxuu yahay waa inaad been sheegin markaad zinaysatid waxaad oranaysaa sheekh waa zinaystay markaad xadid waxaad leedahay sheekh waxbaan xaray markaad xadishid qof baan soo dilay marka yaani wax alla wixii xun oo ilaahay kugu ibtileeyay markaad fashid been ii sheeg ninkii wuxuu dabcayn uu xado waa ka gabaday hadduu ka gabaday wuxuu yidhi oo gabaday wax kale ma aan xishood u sheekhi ka xishoonayo oo wuxuu yidhi wadaadkii ma waxaad oranaysaa wadaad sheekho waa zinaystay inaan waxbaan xaday miyaad leedahay waxa soo ceeb maaha waa ka istaagay sidoo kale wuxuu dabcayn inuu zinaysto oo maxaad oranaysaa waa soo zinaystay waa ka istaagay waxbuu dabcayn inuu kala fiiqo oo dilo wuxuu waa adigo calaa ayi xaal dee beenna ma sheegi kadhid oo sheekhi baad waxaad gasheen cahdi gasheen iyo ballan beentiina ma sheegi kadhid haddana waxa weeye arrintiina waa arrin farxun oo wadaadka ma sheegi kadhid sidaa awgeed baa culimmadu waxay yidhaahdeen hiya umulkhabaa'if yacni beentu waa umulkhabaa'if hooyada waxa xun oo dhan bay noqotay ninkii waa soo noqday wadaadkiibuu u yimid wuxuu yidhi wadaadow arrintii waad iga raysay meel khayr baad iga gashay meel aan dad laga gelin baad iga gashay been ha ii sheegin baa tiri wixii ii sheeg waxaan samaynayo wax lagula imaan kara ma aha sidaa awgeed wixii ku dhici waayey waxaan weeye beentii aad tiri been aan shardiga ku gallay inaan been sheego intaan wixii sameeyana waan ka xishooday wixii inaan kula imaado inta sameeyana waan ka xishooday sidaa awgeed baan uga tego uga haray sidaasaa ninkaa ilaahay ku badbaadishay subxaanahu wa tacaala beentu marka waxa weeye umulkhabaa'if waxayna qofka ku hanuunaysaa haddii ilaahay kuu ruran yahay fujuurada iyo naarta qofkuna ka suuli mayo fujuurada iyo naarta markay ku hanuunayso ilaahay agtiis in halkaas wejigaa looga qaro kadaaban markuu aakhiro tago sidoo kale runtu waa cagsigeeda markaad beenta ka toostid runtaa u toosaysaa runtii loo toosayeyna nabigu calayhi salaatu wasalaam calaykum bisidqi war runta ogaada maxaa yeelay runtu yahdi ila albir walbirriguna yahdi ila aljanna birri bay kugu hanuunaysaa birrigiina jannu kugu hanuunayaa saasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam walaa yazaalu rajulun an yasduqa inuu ku sheegayo qofku ka tegmayo xataa yaktuba cinda allaahi sadiiqa ilaa ilaahay agtiisa looga qoro qofkaasi waa runlow marka waxaynu ka toosaynaa oo ugu weyn waxa weeye oo umulkhabaa'ifka beentii baynu iska ilaalinaynaa beenta carruurteenna inaynu barno ma aha beenta inaynu ku dhaqanno ma aha beenta inaynu sheegno ma aha beentu waa wax xun oo meel daran kugu geynaysa waa ka toosaynaa oo runtaynu u toosaynaa waxaynu ka toosaynaa baadilka oo dhan baan ka toosaynaa oo xaqa ayaynu u toosaynaa baadil haddii la yidhahdo ha laga warramo haddee wax ka warrami karaa ma jiraan oo waxa weeye aad iyo wax soo koobi karaa ayuu u fara badan yahay baadilkii waxa weeye xantii baa laga tegayaa isku dirkii baa laga tegayaa macasidii baa laga tegayaa salaad la-aantii baa laga tegayaa taarignimadaasa laga tegayaa wax allaala wixii xun oo fuxshiha laga tegayaa waxaas oo xun oo macsi ah oo ciddii ka tegayaa waxaa loo aadayaa xagga iyo waxyaalaha wanaagsan oo xaqa ah ayaa loo toosayaa oo runtii ay ugu horrayso oo wanaaggu ugu horreeyo oo daris wanaaggu ugu horreeyo oo inaan la saxman ugu horreeyo carabkoo la xifdiyo ugu horreeyo waxaasoo dhan baynu u toosaynaa haddaynu istiqaamo la nimaadno waxaasoo dhan inaynu ka toosno ayaa la rabaa xaaraantaan ka toosaynaa oo xalaashaan u toosaynaa xaaraantu waa mataqaanaa waxyaalaha xunxun oo xaaraanta ogow oo waxyaalaha ka dhasha xaaraanta waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid markaasuu wuxuu arkay isagoo gacmaha kor u taagaya rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkaanu aad arkaysaan oo booraysan oo timihiisu basaasan yihiin oo safarka ku yimid oo meel walba boorku ka muuqdo ninkaa gacmaha kor u taagaya xaaraan buu ku qadeeyey xaaraan buu ku casheeyey xaaraan buu xiran yahay ilaahna waa leeyahay waxaa ugu horreeya inaan ducadaada la ajiibin waayo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fa annaa yustajaaba lahu sidee loo ajiibaya isagoo xaaraan ku qadeeyey isagoo xaaraan ku casheeyey isagoo xaaraan xiran isagoo waxa uu quudanaya xaaraan yihiin xaaraanta marka waa laga toosahayaa oo xalaashaa loo toosahayaa sidoo kale rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ay laxmin nabada bilxaraam fanaaru awlaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hilib kasta
وحاران كبحة وحاران كفورة وحاران كدشة وشركة جاء نار بأسكله وهبون برسولك عليه الصلاة والسلام حاران وحسهل معها ووحاد لبدن حلاشة أياك ونكسن إن يروح حلالة يا واحد كفي عنتها إن الحاران أربسين وآدي أربسين وجمع السن ويحور بكسم السن فكفي عن إن يروح حلالة وقوت اليوم وآدي ير وكوبا وإلهي يقول بالباش سبحانه وتعالى الدنيا آخرة حرام وحيالها كذا شوحة كم ذا المهاجي يحبر شيء الوكروال المهاجي بارك المدي الوكروال المهاجي إنه مدي كسو حري سموال المهاجي فسق وحنا هاي ناس السمين المهاجي عي يفرحوا وحنا هاي ناس كل غيم المهاجي إنه مروا بالفساد وضان عندما بكابس السعودون اللي واحد وقتها والدكم وجودك المهان إلهي بها السيو إلهي هالسيو يجا سببوها هدي أي واحد المهي يبلاي يحاران تكون كوريين وأيميلوا البحر وقد دونين وحاران وإنه قوتها ووحى أصل لا تبقوا كانوا وجودك هذا كونك كاني قالوا ولا حساب تميا لكن حلال هدات سيسيد ووجودك أذكانتي وأدوية إلهي سببه وأهيد ومدي كنا بتقشوا ويدي سلقنا بتقلوا وقعنتي سلقنا بتقلوا وعربي سلقنا بتقلوا وقف حلال النقض وبارك النقض وقف كاس حلال قول النقض قف كاسنا وجودك إيه وحيالها سوسيات سوكمك إيه بهذا سوسيات زي وحيالها سبحانه وتعالى خالق إيه وأمدك علمها النقض وأمدك أي كود عيسو النغنية ساس النغنية حارانت واحد مرك عادية معها وواحد حاصل لبعتها أي كذا شاموي المهي إنها تسوحرين ويدي المهي إنها لبعتها ما يوحك الأيسن كجرين وحاكولك أساسها إن حارانتي لسيو وحاران لسيو الوكريو وحاران روحيرو وسير يرأيكو بسوقشو وهذا نؤاليين كم إذا حارانتي الربدي رشودي بقى كم إذا إنها رشود ما هنسيسي إلالوش إنها تربسيسي إنها المهاجي يقود أنه قريب تريبو إنها وحي إلهي رالي وسن كاهين إيمان وسن رالي كاهين هذا قصر شقيسين إنها القاد وشقيسين وحارانتها كقودسين الغاد كو حاران ومنهي ووحن وفولحن ومخادرات وهروين توكله وحشيشة توكله قاد كاسين المركة هذه المهاجي كقودسين أرنتها سنة وأنا خطرها وإلمي هذا بلك مالم بار النمدي يولد الصالح يدعو له إنه يكون نقضه علمي من غريان حاران تسيع علمي وحوي مركا وحال الربا إن كتوسنه حارانتي أو حراشي أتوسنه وحال الربا إن المتارك نمدي كتوسنه أو صلاة أتوسنه استقامة إن الله إيمانه أو أن كتوسنه تارك نمدي وأن توسنه صلاة دي يحقي وقت جدي الجماعات كسين السوش جنبا عندي جماعة الغربة عندي كلام وقت جدي إلى السوق إن توصلنا إلى الكهرباء وحاول على إلى الكهرباء هارج مدوا بان تهاي قبله سوق عيار الكاها ودن يرى يقان غاري يبغي إسكتشوغان تكنين ويلشي بس إسكتشوغ إسكهردان تكنين درس كباين بدنا كم إذا إسن تكنين وحال روح حصلا إن الإله سبحانه وتعالى وعب سنه وإنت أصلا وحال الكهرباء إنه صلاة دي كتوسنه نفتني بالغياب مرة إنه كترنه أما إنه كضعيفته إلا كتوسنه تاريخنا من نغنيسا سيدو كنا تاريخنا وحنا نغنيسا هذا الصلاة السير وأهيد صلوا كما رأيت من مصلي النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول صلاة وكلا هدان نغتين يا تاريخنا من نغنيسا وينك صلاة سبحانه وأذكرنيسا صلي فإنك لم تصلي وحوي ولا يا تاريخنا مضر الدليل إلى الشرع سيدو نبته لا قيحه wax badan baa ogaanaysaan wax badan baa hadda la iska asturiyaa waayo qofkan waxa la isku hayaa xagee lagu daraa markuu dhinto qabrida mayaa lagu daraa muslimiinta mise kuwa waxa lagu darayaa gaalada lagu darayaa haddii la isku kahayo meesha dhibaata taal waxaan beermaya oo kaa beermaya taariikhnimada ku beermaya arrin khatar weeye hadday dahaaro la'aan ku beermaan hadday taariikhnimo ku beermaan hadday salaad la'aan ku beermaan hadday alla ka cabsi la'aan ku beermaan hadday tacawud la'aan iyo haddii la shaydaanka la iska ku beermaan هذا واحد فائدة يرميها وحاصل إن لقى توصو وطريق خير كالله توصو وطريق الصلاة الله توصو ولا اليوم وطريق الفن وطهارة له ونظيفة خير نظيفة ده نظيفة ده طهارة له ده صلاة دي إلى لنا إياه ده هدي لك العبادات كتاجن
waxaasoo dhan wanaagga in lagu toosaa la rabaa oo taarignimadaas laga tooso. taarigguna waa arrin aad iyo aad u dhib badan oo wax weeye culimmadu say u badan yihiin yacni meel daran bay ka tuurayaan markii nusuusta la eego runtii qiil iyo wax noocaasa halla layskuma khilaafsana haddii la faro oo la yidhaahdo war tuko oo muddo yar loo qabto oo tukan waayo ilaa 3 beri haddii loo qabto tukan waayo in la xadka laga oofinayo ayada layskuma hayo laakiin waxaa laysku hayaa xaggee lagu daraya markii la oofiyo xadka laga oofiyo inta tukan la yidhaahdo tukan waayo oo xadka laga gudo la dilo xaggee lagu daraya way waxaa laysku hayaa xiwaarka iyo meesha doodu ka jirtaa waa intaa ma waxaa lagu darayaa qabrida gaalada waa gaal qofkaanu mise qabrida muslimka lagu darayaa marka taarignimada iyo khayr darrada iyo waxaas inaynu ka toosno waxaa la rabaa marka inaynu itibaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam itibaac la'aanta ka toosno oo itibaaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka toosno waxaa ka mid ah guriga markaynu soo galayno adkaartii inaynu akhrisanno lagu soo geli jiray markaynu ka baxayno adkaartii inaynu akhrisanno macaamila markay dhacayso adkaartii inaynu akhrisanno inaynu wax walbaba adkaartii nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bin cumar wuxuu gaaray heer macnaa itibaaca intii si u dabagal nabiga calayhi salaam itibaaciisa u raacayay wuxuu taa meeshu maalin fariistaa isaguna fariisto geedka hoostiisa uu fariisiyo hashiisa uu fariisiyo meeshuu istaagay inuu istaago sidaasna mutaabaca la yidhaahdaa saasay yeeli jireen saxaabadii ridwaanullahi calayhim innaguna waa iska moognahay marka walaalayaal istiqaamada waxyaalaha ay ku timaado oo la rabo qofka laga rabo waa sidaas inuu ka tooso wixii xun wixii wanaagana ku toosnaado ducadaas aanu soo sheegnay iyo waxyaalaha loo adeegsanayo in badan aan ka soo hadalnayna mar walba uu kaalmaysto ayaa layna ka rabaa marka waxaan isu dardaarmaynaa insha allahu tacaala inaynu khayrkaas ku toosnaano ilaahayna barino mar walbaba waa aynu khayrkii sidaas mar walbaba aynu ugu kaalmaysanno waa aynu ugu xirno oo maaragtay haddii la koreeyahay sidaasaa layna ka rabaa mar walbaba waxaynu isu dardaarmaynaa inaynu soo dhaqsanno ummaddana itisaalu fardina waa layna ka rabaa inaynu khayrka kusoo xirno insha allah waxaan isku taxalujinaynaa sidoo kale inaynu kutubba xitaa ka bilowno waqtiyada kale oo waqti walbaba waqtiyada firaaqda leeyahay haddii ay cilmi carabigii tahay inaynu bilowno saasaanu hadda wadnaa insha allah haddaan ku guulaysanno wax badan meel jaamacad looga baxo inuu noqdo masaajidkan masjid xaaji cali ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala saasaynu hadda rajaynaynaa cilmigaasi laga faa'iidaysto haddaynu bilowno sida hadda aan wadno ku guulaysanno kan muxaadaraadka tadkirada wadakir fa ina dikra تنفع المؤمنين ذكرجاس الله سبحانه وتعالى مر بقلب والبيان سنة معانا سونا وإنه قائم وإنه تابعين بإذن الله الكريم ومر بابا إن نسوح هذا الرنو وصور وأجيبنا أيها الكرباء وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.